guddida dib u dhiska xabaalaha magaalada Burco oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku hawlanaa dayactirka xabaalaha magaalada ayaa sheegay inuu buuxsamay dhulkii hore lagu aasi jiray dadka geeriyooda. Guddidu waxay soo bandhigeen lacagta ku baxaysa dhulka lagu kordhinayo xabaalaha magaalada Burco, waxaana xukuumadda qurba jooga iyo waliba ganacsatada Soomaaliland ugu baaqeen inay ka qayb qaataan hawshan khayriga. rag muxsiniin ayaa xabaalaha hore u iibiyay oo ay ka mid yihiin Maxamed Saciid Ducaale iyo Talisom oo isaga dambeeyay xabaalaha hadda wax lagu aaso. Guddidu waxay markaa qorshaysay oo in badan ay wadwaday sidii loo iibin lahaa xabaalo kale. Waxaanu helay 20 hektar baanu helay oo aanu iibinay oo gacantoodii goynay. 20 hektar waxay noqdeen $40,000 oo hektarkii $2,000 ayaana laga siiyay. xabaalaha hore ayaanay 1 kilomitir meelaha u jiraan. dhulalka u dhowdhowna qaali baa loogu geli waayay, marka sidaa daraaddeed 20 hektar oo $240,000 bay noqdeen. alxamdulilah nin muxsin ah oo aan Soomaaliba ahayn baanu runtii rag naga mid u bandhigeen. alxamdulilah wuxuuna siiyey $20,000. waa nin aan reer Soomaali ahayn oo ajaanib oo aan waliba Soomaali ahayn. ilaahay subxaanahu wa tacaala isagana waxaynu uga baryanaa inuu miisaanka xasanaadka u saaro. reer Burco markaa maanta waxaanu idiin soo gudbinaynaa dee 20 ninka muxsinka aan Soomaaliga ahayn ajaanibka baa inaga bixiyay dee 20 baa ina dul saaran. waxaan leeyahay $20,000 aan iska bixino oo aynu jeebka gacanta gelino oo aan akoonada ku shubno. akoonaduna waa kuwa waxaanu ummadda ihsaanka sadaqada la baxda aanu ugu baaqaynaa inay ma garanaysaa xabaalaha la idin sheegay lacagta la rabo inay soo bixiyaan. ilaahay khayr ha siiyo laba shirkadood oo xasanaad ka shaqeeya inta badan una degdega sadaqada. dahabshiil iyo Talisom ayaa dee xabaalaha markii hore bixiyey oo muddo markiisa iibiyey. markii labaadna xabaalaha deerarkooda ummadda reer Burco ummadda reer Soomaaliland baa bixisay oo iyagana waa la deeray sida hore la idinku soo sheegay. iminka waxaynu u jeednaa oo qura waxa weeye ninka ajaanibka iyo muslimka xabaalaha uu badh naga bixiyay 20,000 naga bixiyay ilaahay xasanaadkii miisaanka ugu daray isagana inuu ducayno. waxaa raacay oo kale inta 20,000 ee haray ee maanta gurigeennii rasmiga ahaa nin kastaba gurigiisa rasmiga loo doonayo inuu jeebka gacantii galo 20,000 aynu bixino. war aan ka fakirro balse inuu samaysan lahayn xabaalana lagu aaso bilaadanku adduunku ma ahayn noloshu subax adduun loo kala hun maahe bal aakhirna walba ha xasuusto nin walba uu dhimanayaa meeshii lagu aasi lahaa ha ka shaqeeyo. waxaanu ku boorinaynaa insha Allah bismillaah alkariim cid kasta oo hay'adaha islaamka la shaqaysa waa badan yihiin inay arrinka yagan u bandhigaan cid kasta oo gacan ka geysanaysa. waxa weeye 20 hektar ee iibka ninka inaga iibiyo ninka 3 hektar iyo barhka ana ina siiyey weeye oo nin muxsin 3 barhka markii hore ku tabarucay. dabadna aanu ilaahay isku qabteen xabaalo dhinaca ilaahay khayr ku siiyey naga iibi 20 hektar kalena meesha $4,000 baa lagu baayacayay, laakiin isagu sadaqo ku darsaday oo 2,000 inooga siiyey. Mahad Ali Goodir, Star TV, Burco.